سلطان عبد الرحمن جامع دول ومدو إنه مقنع الرمى عافمات الرحمن runtii weyn toonay intuu inaga maqnaa qofku waxa la yiri yar yacaan yar marka la waayo ayaa la talo waxa talaan la ogaadaa wadanku maalintuu uu canabaad nala soo kulantay iyadoo shalay madaxweynuhu qudbadeeyay oo dadka u bushaareeyay oo midnimo ku dhawaaqay oo xoogay horena soo maray oo aad naga maqnayd aanu ilaawnay waxa la farxad lagu wada seexday ayaa nala soo kulantay Sultan Abdurrahman Jaamac Dawal oo aanu labada iyaduba abti meel dhow iskugu nahay ilaahay uu nabad keenay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin xalay ayuu madaxweynaheeni dejiyay xaraaradda intii u dambeysay aad baan ugu mahadnaqayaa aad ayaan ugu mahadnaqayaa dani nasiib badan baan hoo mar haddii tii u dambeysayna degtay maxaad u malaynaysaa waa u soonun dee waa u soon marka hore shakhsi umaan iska ahaayo waa dadku ma dhex socdeen imka dawaba lay maal gashaday ma hadda maanteed horeysiyo dambe sameelaha iska leh ilaahay inagoo nabad qabnaa suldaankeena caafimaad qaba nagu soo celiyay ilaahayna soo mahadnaqaynaa alxamdulillah wada nidhaahno alxamdulillah rabbil caalamiin oo ilaahay loo mahadnaqada sultaan cabdiraxmaan runtii weyn toonay intuu inaga maqnaa qofku waxa la yiri yar yacaan yar marka la waayo ayaa la talo waxa talaan la ogaadaa سلطان وحنا نجي قد بنا سلطان عبد الرحمن مركز إنه وين بينه وكان إن شاء الله وحنود عيننا إلى عافمات كوس ياديو أن رجال يوم وداريو عافمات كوس بركيو إن الناس لا سلك بينه لها كبرينا سولوين هذا السلطان ما توحوا ديارها لما نوعية ضايقة كوبنتو يسمعنا لنا نظلم ويصير اللبان شعب هبلا يرير قارواوين هويوين وضيال الله ما كلام قناع bahdi dhaqankeed ka tirsaneydna waa wada goobjoogayeen way ku joogtaa suldan waxaan ku leenahay dalkaaga hooyo ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow ummadaadii ku soo dhawow waanu ku townay baahi badan baa lagu qabay khayr badan waanu ku rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sultan cabdiraxmaan good bayno bahda dhaqanka ah aynu ku wareejin insha Allah bismillahir rahmaanir rahiim wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'da assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin farxad weyn inoo ah dhammaan dadka jamhuuriyadda reer Soomaaliland mijo iyo madaxba shacab iyo dawladba gaar ahaan bahda dhaqanka waxa kale farxad weyn u tahay oo almaaliya mas'uuliyiintii ugu horeysay yar ilaawiyeen beelweynta direed ee uu gudoomiyaha u ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Dawal aniguna aan gudoomiye ku xigeenkeedii ahaa oo Soomaaliland oo qura ku koobnayn Soomaaliya degta Itoobiya degta Djibouti degta Kenya degta Uganda degta waddanka Chadna degta inta u ballaaran degto beelweyntaas oo dhan waxaan ugu bushaareynayaa in suldaankeeni gudoomiyaheeni isagoo caafimaad qaba soo noqday waxaan ilaahay ku mahadinayaa ducada ilaahay naga aqbalay ee suldaankeena inuu ducayn jiray habeen walba u ducayn jiray ee ilaahay naga aqbalay ee maanta isagoo caafimaad qaba oo qurux badan oo cagiisa ku soconaya inoo yimi ilaaha mahad leh إلهي وحنا كبرينا سودان عافمات كالله كوسي سياديو وحب كور دان الله ينو شافيو مشاركة لنا وكون شيء نايو ودنكو مالين تو عناباد نلا سو كلنت iyadoo shalay madaxweynuhu qudbadeeyay oo dadka u bushaareeyay oo midnimo ku dhawaaqay oo xoogay horena soo maray oo aad naga maqnayd aanu ilaawnay waxa la farxad lagu wada seexday ayaa nala soo kulantay taasuna waa bishaaro adiga aad leedahay oo ilaahay kugu soo beegay halkaas baad ka sii ambaqaadi doontaa arrimaha midnimada wixii ka dhinaa فعل وباهن وردي أمريكي مدحوينه بحيي إن شاء الله هذا نكوسو دويننا فعل بينه بديل دونا ضد مرالا يضل مذا بينه هدي له نفتنو دا إلهي كرتشيننا بش يبرواغو يا اعترافك سنقدا أينو ما لينو وأن لنا سنقدا اعترافه بلا إلهي كديبو إلهي حسن ضل بينه قادنا ضل يجوا نكسم بينه قادنا من خير لا الله ينوجدوا إركنا مدر خير قبل الله ينقصيو أنا هذا يا دوك مهدنا قيا حد بان الدين أنت فاضمو آمنة بالله آمنة فريد ينوو مهدنا قينا وقف قيمة له كان أنت هون كي نجيب الحسي وأنا أقول لنا واحد منا ولا دمينا يهدي لنا نفتي ولده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركو ور إلهي بمحمد سبحانه وتعالى قلياشة هل كان تاجن wasiirada iyo xildhibaanada gudoomiyayaal iyo wasiirada ay halkan taagan yihiin golaha dhaqanka ee halkan jooga
haweenka saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan soo dhoweynaynaa maanta oo runtii sidii ay raggii iga horreeyey sheegeen wasiiradii iyo suldaankuba iyo guddoomiyihuba suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal oo aanu labada iyaduba abti meel dhow iskugu nahay ilaahay wuu nabad keenay maanta alxamdulilah rabbi alcaalamiin. waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oo aynu leenahay inuu ducadeennii naga aqbalay maalmo khayr leh oo shacbaan ay maalmihii u dambeeyey aynu ku jirno rabadaanna soo dhowdahay ayaa ilaahay noo keenay. suldaan waan ku soo dhoweynaynaa adoo caafimaad qaba haddii ilaahay noo kaa keenay. gobolkiina dhammaantii uu kuu helan yahay, uu kuu taagan yahay, meel dhow buu kuu joogaa. qarankiibaa kuu taagan, waa balorta hadalkaydaay, qarankiibaa kuu taagan. ragga halkan joogaa maroodijeexun maahane waa gobolladii oo dhan. marka aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa suldaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu caafimaadkaa u sii siyaadiyo. caafimaad baa loo soo fasaxay inuu caafimaadkaa ilaahay u siyaadiyaan waxaan dareemaynaa inuu xoogaa miisaankiisii aynu naqaanay ku ka duwan uu ku yar socdo maanta. waxaan rajaynaynaa goor dhow inuu miisaankiisii ku soo noqdo halkiisa. ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu kaalintiisii inoo soo gebagabeey. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore dhammaan ilaahay bay mahad u sugnaatay. marka xiga maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan shucuurtayda aan la koobi karin anigoo dalkaygii aanu xanuunsanaya aan ka tegey. maantana anigoo ilaahay caafimaadkaygii ii soo celiyo bad qaba caasimaddii dalka jooga. dadkaygii kala duwanaa ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degme iyo shacbiba lahaa, dhaqan lahaa, na ay igu soo dhoweeyeen. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay. aad baan maanta shucuurtayda aan loo soo koobi karin. intaa haddaan ka imaado waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihin. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan heer kastoo ay lahaayeen, ilaa heer qaran, ilaa heer gobol, ilaa heer degmo. dadkii bulshadii sida cad iyo ag joogsatay iskama soconun anigu. waxa weeye waxaanan qabanin, waxaanan mutaysan ayuu dadkayga iyo dalkayguba iga qabtay. waan insha allahu biidni illaahi kariim waxa weeye mar kale ayaan ka sheekayn doonaa. aad iyo aad baan dhammaantoodna dadkaas iyagoon ugu mahadnaqayaa. waxaan ku faraxsanahay kelmadda suldaan cabdiraxmaan uu yidhi ee ahayd xalay ayuu madaxweyneheeni dejiyey xaraaradda intii u dambaysay. aad baan ugu mahadnaqayaa. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. dee nin nasiib badan baan hoo mar haddii tii u dambaysana degtay maxaad u malaynaysaa? de waa u soonun de waa u soonun. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. aad baan igu mahadnaqayaa. waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay maanta halkaynu joogo. caafimaadkaygu waxa weeye ilaahu ma xisaabin kara. ilaahu ma xisaabin kara. waayo waxaad garanaysaan shalay laga bilaabo ilaa maanta waxaan ku soo jiray taraag 8 bilood iyo 7 cishan waan maqnaa. marka dee waa caafimaadka weeye. waad mahadsan tihiin, waad mahadsan tihiin, waad mahadsan tihiin. waxa weeye dee taalmeelu dhigaba marka hore shakhsi umaan iska ahaayo waa dadku ma dhex socdeen. imika dawaba lay maal gashaday waaryaadheen oo ducada socota iyo dunyada socota iyo dadaalka socda iyo buuqashada socota lama wax xisaabin kara. marka dee kama adagu man xidhan aad iyo aad baad mahadsan tihiin. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxa weeye maanta intaasay inoogu joogi. wabilaahi towfiiq. salaamu calaykum.